السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu dul joognaa caawa oo aanu soo booqanay buurtii uu quraanku ku soo degay taasoo la yiraahdo qaarul xira. hadda saa u jeedaan waxaanu saaranaa buurta dusheedii, halkaasna waa xaramkii oo kacbada ay ku taalay oo halkaa nooga muuqda. insha Allah biidni Ilaahi tacaala barnaamijkii waxyiga iyo suu soo degay oo dhammaystiran insha Allah ayaanu idin faahfaahin doonaa. la socosho wacan insha Allah. إن شاء الله بإذن الله تعالى قارو الحرة وحلو مرة لوقا كان لوق آدو عريريا مركز صباح إن شاء الله بإذن الله وأوجد بيننا وحنا سكودين هنا إن شاء الله أي نمرنا مركز تعبا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى نمرنا أي سكودين هنا طبعا ولي واسيس عنا ولي ماشي وقرآن كسر دقي ولي ما إننا قارن صوصعه صوصعه walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaan hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo qaarul xira ayaa la yiraahdaa. rasuulku sallallahu alayhi wa sallam intuusan nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska imaan jiray isaga oo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkaan khalqay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida uu koonkaan u khalqay isaga oo ka fakarsan habeenada ka mid ah oo ay tahay bil ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga. طبعا nabigu markuu halkan imaan jiray muddo ayuu iskaga dhex jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana hore ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska jooga oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray. markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu wa sallam alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri أخي بكوير ولا الكيو ما أنا بقارن يا أخي بكوير وحنا ما أخري وحنا ما قرأ مركز كوير مرلبات أيوه كوير اقرأ وأخرنا ساي أخري أيوه كوير مركز كوير ما أنا بقارن يا أخي مركز كوير هذانا اقرأ وأخرنا ساي أخري مركز أيوه وحوي وأخري جبريل ووحو كوير وحتى هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوكو رسولك صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu isagoo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buuratan ka degay kadibna waxa uu tagay xaaskiisa Khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay. markaasay Khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dajisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib wuxuuga degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu Khadiija u sheegay. markaas Khadiija ilaahay raaliha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kuugu bishaareynayaa oo ilaahay kaaga rajeenayaa inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaaga rajeenayaa waa calaamado cadeynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof aqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo markastaba xikmad leh ayay ahayd Khadiija ilaahay ha ka raali noqday. sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysano meesh uu ka bilowday oo waxa uu ku soo degay waa halakan ama waa qaarul xira oo meeshan hadda aan ku suganahay ah. marka Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan in aan la dayicin. rasuulku markuu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu ahaa rasuulku sallallahu wa sallam alayhi. إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن قبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي وقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى وقدق لها قرآنك كيو وحوي جنة وقد بلها ودرجة وقصرية وكفول لها أيان الله وقرجينها سبحانه وتعالى قف كست أو فيديو كان ولا ليس كلا
usii sheergareeya oo muslimiinta gaarsiiya oo tusa meeshii waxay uu ku soo degayna ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala inuu xaafidul qur'aan ka dhigo oo ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo khayrka iyo dacwada fidinteeda ayaan alla subxaanahu watacaala uga rajaynaya dhammaantiinna waxaan idinka codsanaya inayd qur-aanka ilaahay dayicin oo qur-aanka ilaahay la akhriyo oo maalin ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa weeye dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaalayaal ka akhridaan ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin ha idinka siiyo inta ay daawanayseen fideogaanna usii sheergara walaalahaga kaloo muslimiinta ah ilaahayna innagii kulligeenba haynoo ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga ah waxa weeye ee barnaamijkeenna kan ku daawata waxaana weeye khayr baa idin rajaynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.